حفلات كستوى بريدي سوى حلو فرج الهست وسميت وين أنا نونا أصاونات توهج dadka u hagda حفلات ولوس ما اللي أنا وحلو فراس سمكوار وحوك جت جيتي أوريتي دبوا هذه سجل فراس subxaanaka yaa cadi subxaanaka yaa قال له يا كوكوس لو كوري عادي وين يك كوبر حكرتك waay يسقي كله يترك هيوك يوك هيرك قدام وعن waay يا مريك كود كي كاريكا كريسكوت انت قرودة كوفرا waay قبل كلها نانية انت قبلنا كذا لك عائلك كود صبت أحد سنين 3 4 5 جمعة ولي قد ويقان عربية ساتردي سندي موندي تسدي وحنا ويقان في الصومال كل شيء قاعد ترامي ترتب على رنيا نيك قريين ترتي نص صاري نقول يواسو رجو يكوي يلا من يلا بتقية قدر يعكس ويعصش daawade hoolkan inaga dambeeya waxaa weli ka socotaa munaasabada buugga gaara bidhaan fankii iyo falsafadii allaha u naxariistay abwaan xasan sheekh muumin caawa halkan waxaa iskugu yimiday hal abuur sugaanyahan iyo inta u saaxiiba murtida guud ahaan waxaa hadda ila taagan abwaan ismaaciil jiheeye oo ka soo qayb qaatay munaasabada abwaan horta soo dhow caawa waxaa timiday fankii iyo falsafadii abwaan xasan sheekh muumin اللهم صل على محمد حسن الشيخ مؤمن ها ويهريا له aad marka حسن الشيخ مؤمن wuxuu ahaa مؤلف waay wuxuu ahaa ملحن waay wuxuu ahaa مغني waay wuxuu ahaa ممثل waay wuxuu ahaa فيلسوف waay wuxuu ahaa عبقري waay wuxuu ahaa dhaqan yaqaan waay wuxuu ahaa bare ku xeel dheer sida bulshada meelaha muhiimka ay u baahan tahay ee ayaheeda loo baro waay xasan sheekh muumin waxaa ammaan ugu filan intuu waxbarashada ka yidhi waay macallin baan ahay anugu waay macallinka waay heesta uu ka sameeyey ها oo quraata iyo tu ardayga ka sameeyey ها macallinku waa maskaxdii dunida oo malaasan waay oo quraata waxaynu dhignaan jiray waay sugaanta isbarbardhigga ah ها ayuu aad u isticmaali jiray waay anigaa laygu idhahdaa isbarbardhiggaad isticmaasha mogta هاي marka aan heesta in wakhtigu cajiib yahay maxbuus ciilan baa garan oo kala samaynaya وكا هاي isbal u fiirsa isaguna markuu goronyada ها inoo soo qaadanayo واي ilmaheeda aroori bay dhigtaa shimbirtuna aroosay ila xidho ammaanaa bay ubadkeeda seexisaa muxuu isbarbardhigayaa labada nololood لبدر waxa uu khabiir ku ahaa isbarbardhigga nolosha saxda ah iyo taqaldan Taqaldan. si ay dadku garaadkooda wax ugala soo baxaan واي meelaha ها aadka ugu muhiimka ah sugaantiisa ay ka إن mid حاجة فلسفة waxa ammaan ugu filan dadweynahan hanuuninaha saawinaa danta u hagnaa وكاسي yaa kala sheegan kara saaseen abwaan ka ahayn yaa Cidda. libka ayaa sheegan kara واي libintaasu meel noogu calaamadiyey واي marka ilaahay naxariistii jannaa ka waraabiyo لا نحرس جناك waxa والله uu ahaa abwaankii ugu horreeyey riwaayaduu leeyahay afka ingiriisiga lagu turjumo يا صوماليات ee soomaaliya واي xasan sheekh muumin waxaa xilligii waa beri ها riwaayad kastoo la dhigayo waxaa lagu furi jiray xafladaha ugu badan waa beri baa dhigi jirtay dowladdii soomaaliya hore ها xaflad kastoo waa beri dhigaysa waxaa lagu furi jiray heesta uu sameeyey dadweynahan hanuuninaa hasaawinaa danta u hagnaa دتك وهقدا xaflad waloo somalilan leedana waxaa lagu furaa samakuwaar wuxuu kaga tegey tii hore iyo tii dambaba haddii isaga lagu furo سبحانك يا عدي سبحانك يا عدي إن أبوان دك فلسفة يا حسن شيخ مؤمن حديد نوعية كده حي سجانتي سي فلسفة xasan sheekh muumin waxaa marka laga hadlayay falsafada ها waxaa inoogu filan dadka soomaaliga ku hadla sabti axad isniin 3 4 5 jimce weligood wuu yaqaaninoo carabiya saturday sunday monday tuesday waxaana way yaqaanaa af soomaali ku sheega haddaad tiraa ma jirta baa la odhanaya ninka quray inay jirtay noo soo saaray ee nagu dhi waa soo rogo iyo koowil iyo laamin iyo labtaq iyo qoodaar iyo hakis way xasan sheekh maalmiheenna inaga dhac tusay afkeena واي ya nin laga dabaalan karo cilmiga lagama dabaalan karo mahaynahaasaan kusoo koobi أبوان أنت سأد كسو كوبيسا هدان حسن شيخ مؤمن أينو هالكا كا تقدو waxaa jirta maadaama caawa jaanis kugu helay buuggaaga 2000 iyo waxaan odhan karaa 12 bay ahayd baa mar kamida aan kala furay waxaa ku jirta maaso aad inan fasal fadhida oo aad u xishood badeed baa leedahay allow yaa ku guursada
allow yaa gugo daay oo geelu badi dhalay garaf xoolo kula dhama baasaasa ka dhigay heesta kalaaskeegii ha waxaan ka xasuustaa ninkan mubaarak taani la yidhaayo ha agaasimihii markii dhawey cabdirashiid ee alka ka hadlayey ha maxaan ku rahdaaye rag badanoo khadar baaruud iyo rag badanoo aan sukalaasayno iminka madax ah dalka ka mid ah ayaanu fasalka wada fadhinay nusa saacihii baan qoray xiisaddii afraad iyagaaba loo dhigay mugti subxaanaka yaa cadiib haya inantuna galaaskay fadhiday heestuna saasay ku soo baxday bal heestii haddaad beerisada qaar xasuusto waxaan ka ganaya allow yaa ku guursado guri aad u weyn iyo goob raxa kula tagaa geesigii ku dhalay iyo tolkaa hibow geeyo kugu hela guddoon wacan yaa mariinka guudka iyo kaa dhiga garayskoo tinta gurada kuu fura gabdha kula hanaaniya intuu gabadha kaa dhala kalgacaylka kuu dhiga goobaha dalxiis kale galabtii ku geeyo hobaanta kuu gura allow yaa ku goodaay uu geelu badi dhalay kuu geeyey reeraha eridhabanka gaaxdiiyo geesalida daratiyo gorof xoolo kaloo dhama oo gob iyo caadkeed xubi kugu gadaadsho wax gudka kuu sula yaa samaanaan gaboobayn gunguraha dushiisana raar gogole kuu dhiga eriyadaasaa ka mid ahaa bartaasay maraysa abwaan aad iyo dood mahadsan tahay sugaanta xasan sheekh muumin iyo jiilkan hadda kacay sidee la iskula falgelin karaa sugaanta xasan sheekh muumin waxay ahayd tayar yar ee sabigu qaato xasan sheekh muumin iyo cali sugulle sugaantooda ubadkaa ku hadaaqi jiray ubadku hadaaqa ayay ilaa iminka ubadka joogaana way qaadan karaan kuwii horena way qaadan karaan maaha sugaan qallafsan oo aad adagtiisu waa sugaan cid waliba fahmi karto yaa sugaanta wuu u dabcin jiray dadka si ay wada fahmaan aad iyo aad dhalinta dambe ee iminka qallinka dhalinta dambe badankooda way garanayaan in la fahansiiyo bartan ka fahmaan buuga in magaranaysa xasan sheekh muumin sameeyey ayuubaa ka maqan fariintaada u dambaysa waxaa doonayaa bal dhalinyarada waxa weeyaan buuga hala iibsado ya dowladduna ya waxaan ku dadaalkeeda kamay marnayne intay gelisay in ka badan ha sii geliso buugu hal mar lakuma eka xafladiisu abwaan waxaan doonayaa dowladdu iminka inta badan waxaa la dhisayaa maadaama waddankeenu dhismayo masxafyaa la dhisayaa goobo taariikhiyaa la dhisayaa adiga haddaan ku dhiibo oon ku idhaa maanta xasan sheekh muumin halkeed ugu magac dari lahayd waxaa meel la dhisayo iyo taalo halkeed oran lahayd waxaa inta abwaan haddiina laga soo qaadan lahayo meel loogu magac dari lahaa maadaama astaanta qaranka sameeyey waa kii noogu mudnaaban lahay subxaanaka yaa cali astaanta qaranku ku mutaysto abwaan walba ku dhaafay inuu qofka ugu horreeya abwaana meel loo bixiyo noqdo inuu noqdo meel kastoo qiimo badan aad dood maadsantahay